بسم الله الرحمن الرحيم labadii cashar hore waxaan soo baranay file book waa kan oo ku sheegay dhamaan file waxa ku dhex jira new uu ku sheegay open iyo qaabka loo furo save iyo save as iyo print preview oo book wuxuu ku xigsiiyay casharka book ee labaad waa 2 barashada home ayuu ka koobnaa wordka in awalba ku sheegay wuxuu ka koobnaa home insert page la oo home waa goobta ugu sharax badan hadad home fahanto waraaqaha aad gaaraysto dhan wada qoran kartaa home lagama maarmo waa meesha ugu badan ee ku jira waxyaabo warqado lagu qoraa wuxuu ugu horeysiinayaa buugu undo goorma la isticmaalo hadda waxaan qorayaa kani waa macallin Axmed intaasaan ka noqonayaa undo waxa weeyaan shaqada aad qabatay ka noqo waan ka noqon buugu wuxuu ku sharxayaa undodaas ku sharxayaa waa kan undo save taa halka sare ku sheegay waa kida xagga waxaan ku soo baranay file waxaas uu ku sheegay buug undo waxaan ku soo baranay waxaan ku fahanay inay tahay shaqada aad qabatay ka noqo waa kan zero football keyboard uga isticmaal control plus sidoo oo isticmaalaya set sax waxaan ku xigsiinaynaa redo iyo buugu ku xigsiiyay oo la macna repeat tan way ka soo horjeedaa shaqadii aan hadda waxa loo baahday wixii aad ka noqotay aad u baahatay iyadoo madaaya noqonaysa dhag waka tan maxay ka noqo tan maxay ku noqo laakiin zero football ma uga isticmaali kartaa koobaad waxaad sameyn kartaa saad qaban kartaa control plus n search talabaadna oo ah taa waxa la yiraahdaa undo tan kale redo-dana waxaad isticmaali kartaa control plus x n y waa xuruuf marka intaas iyadana waa tan wax weeyaan redo labadaas zero football uga isticmaali hatta marka samos ku dulgeysa arkaysa waxa ku tusaya mid walba zero football uga isticmaali buugu wuxuu ku xusiyay cut oo hadda ma shaqeynayo way wax la jiraan oo waa in qorna wax la jiro oo soo celinayna yare waa kan internet jarayna waa tan marba dul tagaysa cut zero footna waad uga jari kartaa adigoo isticmaalay control plus x waan iga jaray soo celi kan noqo ku noqo dadku hadda waxa fahmaysaa hawlihii waxba kaaga baxay warqadii waad wadi karaysaa waxaan ku xusiyeenaa bal meesha suurta gelisa hadii loo baahdo in shay la badiyo yani hal xaraf amba line in badan la qoro laga dhigo hadda waxaan qoraynaa kani waa arday intaas aan badinayna hal mar baad highlight ka saartaa oo highlight ka habka loo saaraa waxa muhiim ah inaad barto highlight ka habka loo saaro marka ugu horeysa halkaas circle waa baalka yar circle halkaas aad geeyso marka laga geeyso dhinaca bix ee mouse-ka ayaad haynaysaa dabadeed gacanta saa ugu riixaysaa haddaad laptop isticmaalsiyo dad masaxad isticmaalso markaad intaas samayso ayaad waxaad tagaysaa copy amar bay qaadaysaa in shaygan la qaatay shay kale ee amarka badiyana waa paste waka labadaba zero football uga isticmaali kartaa keyboard copy waxaad isticmaali kartaa waa isticmaali control plus c buugnu ku sheegay paste waxaad isticmaali kartaa waa isticmaali control plus v oo zero foot baad ayar ma soo buuxinaysaa bilaqsi waxaad fahamtay hadda waxaad fahamtay 1 2 3 4 5 goobood baad fahamtay waa wixii aan qabtay ka noqo baa wixii baan ka noqonaynaa wixii aan qoonay ka noqonaynaa kana waa ku noqo kana waa jar kana waa qaado kana waa badi inta waxaad shantaas shay baad ku fahamtay shantaas waa very important haddaad aqoon khatar waxa weeyaan waxa ku adkaanaya waxyaabaha ilaa halkan kale marka gaadho deynta kama home kama maarmis kama baxsido marna way marka inta aad fahamtay ayaa waxaan ku xigsiinaynaa xarafka p oo loo soo kaabsado Paul oo loo soo kaabsado Paul tusaale
حويان حرف كاسين مكا كانوا حلا كان هو عرضي يمكن حروف تان قري واقع خفيف مركز ربطين مدو خط كوبا ديسو halkan u badaya clicks Paul Walker zero foot ma uga saartaa keyboard ha control plus b buuggeena soo buu ku sharaxay anuu camaliyan kugu sameyn zero foot markaba adaba isbari karo buugga laftigiisa aanu qoray qaab qof isku bari karo oo inta dhan qof isku qoro halkan marnay p daas marna Paul Walker control plus b halkan buugga xusuusin buu ku loo highlight-ka qaabka loo saaro inta dhinaca ka timaado laakiin kan uu control plus isku leeyahay harkaad mar wada saari kartaa waa markaad book oo dhan rabteen wada saarto imanka book oo dhan buu wada fuulay kan oo kale waa markaad isticmaasho dhammaan waxa warqadaha meesha yaalo dhan wada qaadanaya baad tusaale imanka intaas oo dhan mar highlight ka saaray wana highlight ka wada saaray laakiin kan yare aad dhinaca ka keenaysa kolba inta aad rabto ayaad ku cayimanaysaa casharkiina halkaas ku joojinayna